saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Sheekada filimkeenna waxay ku saabsan tahay markab weyn oo lagu magacaabo Boston. Markabkaana wuxuu ahaa mid aad u xajmi weyn, sidoo kalena dabaqyo badan ayuu lahaa. Maantana dad badan ayaa soo raacay markabkan. Qof walbana wuxuu ku faraxsanaa inuu ku dalxiiso markabkan. Sababtoo ah waxay ahayd 31 Diseembar. Sanad cusub ayaana bilaaban doona birito. Dadka qaarkoodna halkan xaflad ayay ku dhiganayeen, halka kuwa kalena ay turub ciyaarayeen, qaar kalena ay qoobka ciyaarayeen. Intaa dabadeedna waxaan aragnaa qolka kontaroolka ee markabka, halkaasoo uu kabtankii markabka uu ka shakiyay in markabkan ay wax ka qaldan yihiin. Howlwadeennadii kale ayuuna u sheegay inay wax qaldan yihiin. Intaa kadibna waxay arkeen mawjad aad u weyn oo ku soo wajahan ayaga. Mawjadaana waxay ka soo socotay markabka hortiisa. Intaa kadibna howlwadeennada markabka markay arrintaa arkeen aad bay u baqeen, waxayna si degdeg ah isugu dayeen inay marinka ka bedelaan markabkooda. Intaa dabadeedna waxay ku guuleysteen arrintaa, balse wax yar kadib mawjad kale oo weyn ayaa hortooda ka soo muuqatay, laakiin mawjadan aad bay u sarreysay. Arrintaana waxay ka dhigan tahay in mawjadan ay ka weyn tahay markabkooda. Intaa dabadeedna kabtanku wuxuu dadka u sheegay in dhibaato weyn ay ku soo wajahan tahay markabkooda, kadibna ay shil gali rabaan. Haddana dhammaan rakaabka iyo shaqaalaha markabku waa inay aad u feejignaadaan. Dadkuna markay khatartaa maqleen kadib foodo ayaa meesha ka dhacday. Intaa kadibna mawjad aad u sarreysa ayaa ku dhufatay markabkoodii. Cadaadiska aadka u weynna wuxuu sababay in gebi ahaanba uu rogmo markabkii weynaa. qaybihii sare ee markabkaana ay hoos maraan, yacnii markabkii weynaa halkaa ayuu ku rogmay. dhinaca kalena markaan ku soo laabanno gudaha markabka siday wax uga dhacayeen, dad badan ayaa dhintay markuu markabka shilka galay kadib. Markii arrintaa laga soo tagana qarax weyn ayaa ka dhacay qaybta matoorka ee markabka. arrintaa darteedna dhammaan naaquudayayaashii markabka waday halkaa ayay ku dhinteen. haddana hoolka markabka dad badan ayaa joogay. nin howlwadeennada markabka ka mid a ayaana u yimi ayaga, wuxuuna u sheegay in war wanaagsan iyo war xunba intaba uu u haayo. warka xunna wuxuu yahay mawjad weyn oo sunaamiya inay ku dhufatay markabkeenna, sidaa darteedna waxaa gebi ahaanba rogmay markabkan aan saarannahay, mana jiro qof halkan ka bixi karo. dhinaca kalena warka wanaagsan wuxuu yahay in daqiiqado ka hor intaysan musiibadan dhicin, saraakiisha markabku inay wargeliyeen kooxda samata bixinta si dadka markabkan saaran loo badbaadiyo. dhowaanna waxaa halkan imaan doona kooxda samata bixinta iyagoo helikobtaradooda wata, sidaa darteedna qof walba waa inuu isdejiyaa. mar dhow ayaan halkan ka bixi doonaa. intaa kadibna waxaan aragnaa nin lagu magacaabo Daylan, kaasoo waxyaabo muhiima kala baxaya meydka sargaal dhintay jeebkiisa. intaa dabadeedna cunug yar ayaa asaga u yimi, wuxuuna weydiiyey waxa uu samaynayo. Daylanna cunugii yaraa wuxuu u sheegay inuu isku dayayo siduu halkan uga bixi lahaa, laakiin cunugii yaraa ayaa asaga u sheegay inuusan halkan ka bixi karin sababtoo ah markabkan aan saarannahay wuu rogmay. laakiin Daylan ayaa cunugii yaraa u sheegay inay jirto waddo kale oo halkan looga bixi karo, waana waddo dhulka hoosteeda marta. sidaas ayaana samayn doonaa aniga. intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu halkan isaga tago asaga. intaa dabadeedna cunugii yaraa wuxuu meesha keenay hooyadiis, sababtoo ah Daylan wuxuu horay oo la kulmay hooyadiis uuna garanaya ayada. intaa kadibna hooyadu waxay Daylan weydiisay, maxaa cunuga yar ugu sheegtay inaa halkan ka bixi kartid? wuxuuna ugu jawaabay, haa waan aqaanaa waddo halkan looga bixi karo. intaa kadibna cunuga yar hooyadii waxay asaga ku tiri, ma waadan maqlin hadalkii sargaalka uu yidhi, kaasoo ahaa inaan halkan joogno sidoo kalena caawinaad ay noo soo socoto. markabkan aan saarannahana wuu godoomay, sidaa darteedna ma jirto waddo halkan looga bixi karo. isla markiina nin kale oo lagu magacaabo Robert iyo nin odaya ayaa meesha yimaadeen. ninkii odaga ahaana wuxuu ayaga u sheegay inuu yahay qabiir nashqadeeya oo samayn kara wax walba, si fiican ayaana u aqaanaa sida loo sameeyo doomaha iyo maraakiibta. sida aan qabana markabkan maaha mid loo sameeyey inuu biyaha kor sabeeyo. arrintaana waxay la micno tahay in markabkan uu dhowaan degi doono, dhammaanteenna aan halkan ku dhiman doonno. dhinaca kalena Robert wuxuu Daylan weydiiyey, ma taqaanaa waddo lagu tegi karo kasiimada meeshaan? Daylanna wuxuu isaga ku yidhi, haa, laakiin xaaladan miyaa rabtaa inaa halkaa aadid oo aad ku soo ciyaartid? Robertana wuxuu isaga ugu jawaabay in gabadhiisa ay meeshaa ku xayirmatay, uuna rabo inuu meeshaa ka soo badbaadiyo. waxaana rabaa inaa meeshaa ii raacdid adiga. marka horena aa gabadhayda ila soo badbaadisay, intaa kadibna si wada jira ayaan halkan uga tegi doonaa. Daylanna wuxuu isaga
ugu jawaabay inuusan sidaa samayn karin sababtoo ah waxaan rabaa in keligay aan hawshayda qabsado. Robert-na wuxuu asaga weydiiyey inuu u sheego waddo gaaban oo sida ugu dhaqsiyaha badan meesha lagu tagi karo, wuxuuna ugu jawaabay waan kuu sheegi doonaa. Arrintaana waxay caddaynaysaa inuusan meesha garanayn balse uu doonayo inuu halkaan isaga tago. Intaa dabadeedna Robert wuxuu u yeeray nin ka mid ah shaqaalaha markabka, wuxuuna weydiiyey sida ugu fudud ee halkaan looga bixi karo. Intaa kadibna ninkii wuxuu bilaabay inuu asaga u sharaxo sida halkaan looga bixi karo. Kadibna Robert ninkii wuxuu u sheegay inuu siin doono labanlaab mushaarkiisa hadduu meesha geeyo. Ninkiina arrintaa wuu ka aqbalay asaga. Intaa kadibna ninkii iyo Robert halkaa ayay iska soo raaceen. intaa dabadeedna Robert wuxuu Dylan ku yiri maqal haddii aad qorshe noo haysid markaan waxaan haysanaa qof nahaga ee noo sheeg wax ku saabsan meeshaas haddii aan dhammaanteen iswada raacnana nafsadeena waan badbaadin karnaa laakiin haddii aan kala tagno waxaa laga yaabaa inaan dhibaato wajahno. Dylanna ugu dambeyntii wuxuu aqbalay arrintii loo soo jeediyey. intaa dabadeedna dadkii markabka saarnaa oo dhan waxay doonayeen inay qaybta hoose ee markabka ay aadaan sababtoo ah qaybta hoose ee markabka waxay ahayd qaybtii sare ee markabka intuusan rogmin ka hor. taasina waa sababta dadka oo dhan ay meesha ugu socdeen maxaa yeelay meesha waxaa ku yaalay waddo looga bixi karo halkaan sidoo kalena doomo ayaa yaalay meesha kuwaasoo halkaan looga bixi karo laakiin dadku markay godka marayeen dhammaan albaabadii meesha ku yaalay waa la xiray si aysan biyuhu gudaha ugu soo galin markabka inkastoo ay horeyba biyo ugu jireen markabkan. daaqadaha iyo albaabada meesha ku yaalana waxay ahaayeen kuwo aad u xoog badan sidaa darteedna biyuhu halkaan uma soo gudbi karin. intaa kadibna dadku socodkooda ayay horay u sii wateen waxayna gaareen qaybtii hoose ee markabka halkaasoo ay doonayeen inay nafsadooda ku badbaadiyaan laakiin wax yar markay sii socdeen waddadii oo dhan ayaa ka soo xirmatay sababtoo ah hortooda waxaa yeelay meydad badan. intaa dabadeedna waxay fureen albaabka wiishkana kor ayuu ku maqnaa arrintaana waxay keentay in meesha ay bir dhigaan birtaana ay waddo ka sameeyaan si ay u gaaraan albaabka ka soo horjeeda ayaga. markay halkaa tageenna waxay sameeyeen dadaallo badan si ay u furaan albaabkan balse way ku guuldaraysteen inay furaan albaabkaas laakiin si lama filaana albaabkii dabaqa ka sarreeyey ayaa furmay ayaga. intaa dabadeedna dadkii oo iscaawinaya waxay gaareen meesha laakiin weli 2 qof ayaa ka dhimanayd. intaa kadibna ninkii odaga ahaa iyo ninkii shaqaalaha ka ahaa markabka waxay soo koreen birtaas. intaa kadibna birtii ayaa ka hoos baxday ayaga arrintaana waxay keentay in meesha ay ka soo laalaadsamaan xitaana ismaysan celin karin sababtoo ah god ayaa ka hooseeyey hadday meesha ku dhacaanna way dhimanayaan laakiin dhibaatadu intaa kuma koobnayn sababtoo ah kor waxaa ka soo dhaqaaqay wiishkii. haddana qof walba wuxuu xaqiiqsaday in labadaa nin aysan meesha ka badbaadi karin halka Dylanna uu gacanta ka hayay ninkii odaga ahaa ninka kalena odaga lugtiisa ayuu haystay. arrintaana waxay keentay in miisaankoodii uu sii saa'ido si kastoo uu iskugu dayay inuu soo jiidana wuu awoodi waayay arrintaas. intaa kadibna Dylan wuxuu arkay wiishkii oo ku dhow inuu ku dhaco ayaga sidaa darteedna odagii waayeelka ahaa wuxuu u sheegay inuu meesha ka tuuro waardiyaha si uu u badbaado asaga haddii kalena adiguna waa dhiman doontaa. intaa kadibna odagii waayeelka ahaa wuxuu meesha ka tuuray ninkii asagoo haraati ku dhufanaya kadibna Dylan ayaa si dhaqsiya leh odagii meesha uga soo jiiday sidaa ayuuna ku badbaadiyey. intaa dabadeedna wiishku markuu hoos u soo dhacay arrintaa waxay keentay in qarax weyn uu meesha ka dhaco sidoo kalena meel walba dab ayaa qabsaday. Dylan iyo Robertna si dhaqsiya leh ayay u xireen albaabkii wiishkooda haddana mid ka mid ah ayaga ayaa dhintay 5 qofood oo kaliya ayaana isku soo hartay. intaa kadibna mar kale ayay horay u sii wateen socodkooda markay xoogaa socdeenna waxay tageen meel lagu caweeyo halkaana Robert wuxuu ka helay gabadhiisa iyo saaxiibadeed iyo 2 qof oo kale haddana 4 qofood oo cusub ayaa ku soo biiray ayaga. arrintaana waxay la micno tahay inay 9 qof noqdeen haddana sida ugu dhaqsiyaha badan waxay ku qasban yihiin inay gaaraan qaybta sare ee markabka maxaa yeelay markabkan dhawaan ayuu degi doonaa. intaa kadibna horay markay u sii socdeen mar labaad waddadii ayaa ka xirmatay ayaga hadday dadkan rabaan inay dhinaca kala tagaanna arrintaa macquul ma ahayn sababtoo ah waddadii birta ahayd way jabtay taasoo ayaga ka caawin lahayd inay dhinaca kale ee markabka ay gaaraan. intaa dabadeedna Dylan dadkii la socday wuxuu weydiiyey ma jiraa qof garanaya waddo kale oo meeshaan looga bixi karo. haddana gabar ayaa u jawaabtay waxayna u sheegtay in maalmo badan ay ku dhuumaalaysanaysay markabkan sababtoo ah wax tigida ma aysan haysan sidoo kalena waxay asaga u sheegtay in markabkan gudihiisa ay ku noolayd maalmo badan sidaa
darteedna ay si fiican u kala taqaano markabkan marka laga reebo arrintaana ma jirto waddo kale oo halkan looga bixi karo intaa kadibna 5 qofood oo ayaga ka mid ah ayaa tariinka mid u fuuleen waxayna bilaabeen inay halkan isaga tagaan 5taas qofna waxay si tartiiba u gaareen dhinaca kale ee markabka intaa kadibna Robert ayaa gabadhiisa ku yiri aad dhinaca kale ee markabka laakiin nin sakhraansanaa oo la socday ayaga ayaa ku yiri aniga ayaa ka hormaraya gabadhaada intaa kadibna wuxuu bilaabay inuu aado dhankii kale ee markabka kadibna intuu wadada ku socday halka ayuu ka dhacay intaa kadibna qayb weyn oo mashiinka kamid ah ayaa ku dul dhacay asaga arrintaana waxay sababtay in ninkii iyo wiishkii yaraaba ay halka ka soo dhacaan biyahana ay ku dhacaan sidoo kalena shidaal badan ayaa ku daatay biyaha arrintaana waxay sababtay in dab uu meesha ka kaco haddana ninkii sakhraansanaa halka ayuu ku dhintay 8 qofood oo kaliya ayaana isku soo haray laakiin 5 qof oo ayaga ka mid ah dhinaca kale ee markabka ayay u gudbeen halka Dylan Robert iyo gabadhiisana ay dhinaca kale ku xayrmeen biyahana maadaama uu dab ka kacay ma jirin waddo kale oo ay dhinaca kale ee markabka ay ku tagi karaan intaa kadibna Dylan wuxuu xarig ku xiray albaabkii meesha ay joogeen kadibna wuxuu gudaha u galay biyaha waayo wuxuu ogaa hadduu gunta hoose ee biyaha uu ku quuso in dabku uusan waxyeelayn karin asaga qaybtii koowaad ee filimkeenana meesha ayay ku soo dhamaatay haddii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe waa ku mahadsan tahay la joogistaada